shir ay yeesheen bahda waxbarashada dugsiyada gobolka Banaadir socdayna muddo 3 maalmood ah laga soo bilaabo 8 bishii 9aad 2020 ilaa iyo 10 bisha 9aad 2020 ayaa waxa ka soo baxay war saxaafadeedkan u qoran sida soo socota. bahda waxbarashada dugsiyada gobolka Banaadir war saxaafadeed burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliyeed kadib waxa waxbarashada dalka dib u yegleelay aqoon-yahano Soomaaliyeed iyadoo ay jireen duruufo qalafsan oo isugu jira colaado iyo abaaro isbiirsaday. intaas kadib hadba tacliintu waxay ku tallaabsanaysay horumar iyadoo ujeedada bahda waxbarashadu ahayd in adeega tacliineed ee ay bulshada u hayaan ku simaan hay'adihii dawladeed ee ku shaqada lahaa. sanad dugsiyeedkii 2014-2015 ayay wasaaradii waxbarashada ee xilligaas bilowday isku daygii ugu horeeyay ee qaadista imtixaanada dugsiyada sare ee heer qaran qaybo ka mid ah gobolada dalka. bahda waxbarashada guud ahaan gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir waxa ay soo dhaweeyeen qaadista imtixaan midaysan oo ay wasaaradda waxbarashadu maamulayso si loo qiimeeyo waxbarashada ardayda iyo xarumaha ay wax ku bartaanba. iyadoo ay jireen dhaliilo fara badan oo uu lahaa habka qaadista imtixaanka qaran ayay bahda waxbarashada gobolka Banaadir ku dhiirigeliyeen ardaydooda gelista imtixaanka qaran wax dood ahna aysan ka keenin natiijada imtixaanadii ay wasaaradda waxbarashadu shaacisay sanadihii la soo dhaafay. taariikhdu markay ahayd 6 bishii 9 2020 ayay wasaaradda waxbarashadu shaacisay natiijada imtixaanka qaranka ee sanad dugsiyeedka 2019-2020. waxa lagu sheegay natiijada soo baxday in tirada ardayda gobolka Banaadir oo ahayd 25449 arday ay ka dhaceen 7873 arday. celceliska natiijada ardaydu gudubtayna ay tahay 63.81%. waxaa intaas dheer in ardayda tiradooda aan soo xusnay ay wax badan ku lahayn boqolka arday ee ugu dhibcaha badnaa, sidoo kalena ay 3 meelood meel ardayda gobolka Banaadir imtixaanka ku dhaceen. arrintaani waxay fajac iyo amaka ku noqotay qof kasta oo wax ka yaqaan halbeega natiijooyinka lagu cabiro. bahda waxbarashada gobolka Banaadir waxa ay dhaliilsan yihiin natiijada la shaaciyay ee aan ku qotomin tirarka aqooneed khilaafsanna hababka qiimeynta ardayda. sidaas darteed ayaan ku baaqaynaa 1 in madaxda sare ee dalka gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo farageliyo natiijada 10 ee dugsiyada sare 2019-2020 oo ay shaacisay wasaaradda waxbarashadu, isla mar ahaantaana uu u saaro guddi heer qaran ah oo ka kooban xeeldheerayaasha tacliinta dalka. 2 in wasaaradda waxbarashadu aqbasho dhaliilaha cadcad ee ka muuqda natiijada ay shaacisay garowsatana khaladaadka ka dhacay. 3 in ay cudurdaar ka bixiyaan madaxdii qadafka kula kacay ardayda gobolka Banaadir barayaashooda iyo maamuladoodaba, taasoo ay ku sheegeen ardayda gobolka Banaadir sababta ay ku dhaceen inay tahay adeegsiga daroogada taabuuga iyo ku mashquulida barta TikTok. sidoo kalena madaxda qaar ay ku tilmaameen xarumaha waxbarasho inay u furan yihiin qaab ganacsi. mahadcelin bahda waxbarashada gobolka Banaadir waxa ay u mahadcelinayaan aqoon-yahanada waxgaradka Soomaaliyeed iyo dalladaha waxbarashada ee sida togan uga falceliyay natiijada huwan dhaliisha.